garanaysaan waxaan baad ii garanaysaan baan u malaynayaa waxaan ahay ninkii garaadada hortooda ka sheegayay wixii aad u baahnaydeen wixii aad u dhimateen waxaan ahayn meesha aysan ka soo bixin ninkii la hortagay baan ahay oo u sheegayay haddana waan ku celinayaa garaado waxaan leeyahay waad aragtaan dhalinyaradiinnii waad aragtaan ubadkiinnii waad aragtaan dumarkiinnii iyo carruurtiinnii waad aragtaan bulshadiinnii waad aragtaan waxay doonayaan wax ka duwan haddii aad la soo baxdaan iyagana qorshaa meel u yaalla halkan waxaan farriin uga dirayaa muuse biixi baan farriin uga dirayaa wuxuu daraad lahaa argagixisaa laascaanood qabsatay laascaanood argagixisa ma qabsane waxaa qabsaday dadkii lahaa oo aan ka mid ahay oo ay kuwani ka mid yihiin oo kuwuu laynaya ka mid yihiin dadkaasaa laascaanood qabsaday oo haysta waxa ay rabaan waxaan hayna ka socon maayaan muusow dadka aad isdilaysaan ma aha buntland ma aha federaalna ma aha cid kalena ma aha muusow dadka aad isdilaysaan waa aniga iyo intay la midkaa ee rabitaankooda u dagaalama ballanteenu waa inaan maalin walba nimaadno hablaha waa ka dharginanaa odayaasha waa keenanaa wiilasha waa keenanaa qof walba uu imaanayaa maanta wakhtigaa inagu yar nii dhintay labada halkaa ku yaalla iyo gabadhii lugta laga jarayba waxa inaga muuqatay inaysan innaga inaga dhalanin qof kastaa uu iska ordayaa calan buu wataa facebook wax ku qorqoraya maanta xaaladda keliya inoo furan xaaladda keliya maanta inoo furan war waa inaan dagaalanno ama inaan dhammaanno ama inaan noolaanno waa labadaa midkood wax kaloo inoo yaallaa ma jiraan gunnimo u laaban mayno miyaynu gunnimo u laabanaynaa somalilan oo maanta magaalada soo gasha dhimashaan ka xignaa oo wallaahaya oo bilaahaya oo tallaahaya dhimashaan wallaahi ka xigaa anigu waa ka xigaa yaa igu raacsanoo dhimanaya yaa doonaya inuu dhinto war yaa doonaya inuu dhinto aan ka baxno sidan aan ku nool nahay garaadada farriin baan u dirayaa 15 sannadood baad waad nagu dul ciyaarayseen waxaad rabtaan baad naga dul samaysateen sidaad rabtaan baad naga yeesheen ma rabno intay dagaal go'aamiyaan inay isaga keen tagaan innagiyo nimankaas ninkii maanta baxa ee magaalada ka baxaa waa isaaq dhalashada waa ka qaadnay waa snm waa tuug garaadka maanta magaalada ka baxaa intuu dagaal iclaamiya ninka magaalada ka baxaa waa tuug inagama dhalanin isaganna ku bilaabayna waxaan idinkaga tegayaa laba qodob baa maanta inoo furan mid saddexaad inooma furna inaan dagaalanno oo dagaal u diyaargarowno gabdhow dagaal idinkama muuqdo ragow dagaal idinkama muuqdo cid wax idinka muuqda ma leh waa labisantihiin qaybtiin baa waxay iska ilaalinayaan dhulka fadhiisataan dadna qadiyaddaasay u dhinteen calankaa aan sidad baa u dhintay maanta waa wax abaalgalay ciyaal yarro walaalahayoo kale ahaa anoo kaluu ahaa rajuu nolosha ka lahaa wuu u dhintay aadna waxaad ka cararaysaan ad dhulka u fadhiisatid waxaa inoo ballana may maqlaysaan soo isma maqalno بريتو لقى بلا أفرت قلب نمو دبا إحنا سوما مقالة نما إحنا أفرت قلب نمو إلا تمن كامل ناكنا فردينا همين كستوا مين كرينا رير السودان كي أنت صوب حين سانسو كلوسي تاجنانش إلا وكذا عيم رحوينود مين كرينا مصر هل كاسم فريسان إننا قف كستوا مدرين تاجي كوكش على سوق ولا لا إنه هيمانتا ما كان نهين قبيل هل كاسم فريسان إننا هدي وحخلد أيكو عاميان إنك أوتسجي إن استاف كذا هين الله استاف كينو هين الله قوليستا دليردنا هقوليستن وحوي halkan ka socda dhalinyarada ale idinka ale waynu ilaashananaa cidna uma daba fadhino halgankeenna iyo waxaynu doonano iyo xornimadeenna iyo inaynu dulliga iska dulqaadno cidna uga haybaysan mayno guddida iyo garaadada iyo cid kasta waxaanu leenahay waa inaad ku shaqaysaan doonista shacabka wixii aan doonista shacabka ahayn dhalinyaradani ma aqbalayaan waxaan rabnaa nimankan macal magacooda macal yaga inaan ka cidhibtirno lascaanood sooniya sanaag yaca inaan ka cidhibtirno arrinka ugu muhiimsan waxa weeye magacyadii wax somalilan ku qoran baa guryihiinna ka buuxo oo buug lagu sheegay buug haddii alluhu idmo berri 4 galabnimo fagaraha buluugga wuxuu idinku baaqayaa inaad keentaan waxa laala wixii buugaas ay magaalada keentaan ay ugu magacdareen manhajka ugu magacdareen waa gubaynaa somalilan iyo wixii ku qoranba waa gubaynaa naf iyo maalba wixii somalilan ku qoran ma arki karno sidaa daraaddeed waxaan kaliya idiin soo gudbinayaa anigu
hal mid bay leedahay haddii gaadhigu wax jiidho ama wax geysto sumadiisa lama garanayo waa sumad yarood ku calaamadsan karto laakiin buugta iska soo gura waa qashin mabdaoodii baa xambaarsan hebel hebel iyo waxa ku qoran koodbuur iyo lixira ku wada qoran waadna ogtiin cid idinka sheekayn mayso haddii alluhudna waa cidhib tiranaa buug war faataxadaynu maraynaa war waxaynu halkaa iskugu nimid wax badan baynu sugaynay masiirkii garaadada ka soo baxayey aaya ka tashigii SSC wax badan baynu sugaynay ma garateen maanta waa maalintii u dambaysay garaadadu hadlayeen welina qodob saxa lagama hadyo oo ay garaadadu dhaheen dagaal baan ku dhawaaqnay nabadgelyaan ku dhawaaqnay hadda ma garatay xamxamna waxaa meesha ka dhacaysa sida wax loo saadaalinayo duwan walba inuu halka ka baxo gurigiisa ku noqdo ciidanka la baxo hadduu rabaado dagaal baa dhaci doone hadda ma garateen garaad walba isim walba 33 nin walba halka waxaan uga diraynaa aan ugu baaqaynaa intayadaas halka dhooman wala saacad barkeed iyo inta xaraysan waxaanu diyaar ugu nahay inaanu dhimanno waa mid nabad baan doonayn deganaanshaan doonayn Soomaaliland meesha ka sitalisaan doonayn garaadada mid baan leenahay isimada mid baan leenahay garaadada mid baan leenahay 33 mid baan leenahay ragaanu talada u dhibanay mid baan leenahay annaga idinka taargetka noo saaran idinka noo eesana hadaad ku dhawaaqdaan nabad iyo eesana meesha shaqayso waxaanu argagixisadii Soomaaliland ugu sheegaysay aan ahayn ku noqonaynaa wallaahi billaahi tallaahi waxaanu diyaarteeda siboona inaanu argagixiso ku noqono garaadada haday warcad oo dagaal noogu dhawaaqi waayaan سمعنا أنا يقول سلووني عبد العزيز إسماعيل هذا اللي سلووني هذا البلد ضبع داتا waxay meesha dhamaantoodu taagay intaas inay dhimato maantada hadii halka ciidan ka soo galo hadaa dagaal ku dhawaaqdo bixlaxtaana dagaal diyaar ah rag iyo dumar baa anaga dagaal diyaar ah qoriyo dhagax waxaanu aynaba dagaal diyaar baan ugu nahay awalan Allah subhanahu wa ta'ala wa mahad iskale meesha waxa fadhiya habla qiimiye qadarin mudan dhalinyaradeenu soo halgantay keentay heerkan inaan garaadan soo xaroon jirin maanta la asxaanood yimaado ayaa fadhida maxaan leeyahay yaan urta dumar baa ku hadlaya marka waxa kale laga yimaado adeertaas naga dhaxaysa anaga Soomaaliland taas naga dhaxaysa adeer waxba idinku yidhi waxa naga badbadatay dhul baahanta waa dumar badan yahay adeer dumarkoodu xiliyu leeyahay xabad bay tagaysaa afka la iska gelinayaa garaadada mid baan sheegayaa fiidiyogaas haduu gaadho waa wacad ilaahay iyo weyna Allah ku marray hadaa qodobaan ku qanci weyna u soo baxo adeer bacda ugu horeysa waa naga bilaabana naag baa riday alla yiraahdo war ma igu raacsantiin xiniyay tagtay adeer waqti la isbarbariyo waqti Soomaaliland ay naga baxa la dhaho ma joogto qof walba la saano jooga wuxuu aaminsan yahay in Soomaaliland marka ay soo saaraan nimankani soo garaadada soo saaraan go'aamada inay Soomaaliland dagaal soo qaadaso adeer dabooshku waa diyaar biskoolad baa ugu yar afka la iska gelinaya ilaa oo diinta naga saar hablahayga qiimaha iyo qadarinta mudan hal waxa raga beegi maaye in adeer diyaar ma tiidin xabada mariyasan waa wacd Allah hadaan xabad weyna xitaa wallahi billahi la iska jiraya wala iska furanaya xabadaha dagaal baanu rabnaa kelmad baan ugu soo noqnoqotay nabad baan naas la nuuga leh adeer colaad baanu naas u sameeynaa anagu colaad baan naas la nuuga leh war dagaal diyaar ma u tihiin war dhimasho diyaar ma u tihiin war inaa shahiidaan diyaar ma u tihiin war labada wiil halka ku sawiran u duceeya ilaahay ha u naxariisto war rooy cabdi kariin u duceeya war balantaan inaynu ka daba tagno soo diyaar ma aha inaynu dhimano soo diyaar uma nihin inaynu nafteena haligno soo diyaar uma nihin war garaadada mid baan leeyahay dhalinyarada reer la sacaanoodna mid baan leeyahay war garaadada mid baan leeyahay war adeer alihiina mukayfidin ku baxaya adeer alihiina mar waxaad idin ku baxasaa alihiina 20 kun ugu qadaynaysan alihiina 10 kun ugu cashaynaysan adeer waxaad cunasaan waa dhiigi rooy cabdi kariin iyo labada wiil halka ku sawiran iyo inta kale inaga maqan war ma beentayba soo dhiigani ma cunayaan soo dhiigani ma xidhna soo madaxa uma saarna soo ma gashana maxaynu uga baqanaa runtaynu sheeganaa oo ka gaban mayno oo runtu inaayeer runtu warkacadu waa kaash ma beentayba garaadada dhumaha
timid baan leeyahay war adeer waxaanu annagu ku qanci weyno haddaad noo soo saartaan wallaahi wabilaahi oo tallaahi qofka ugu horreeyaan hayo idinkaan idinku shahiidanaa gurigoodaynu gubanaa war garaadku hadduu shaqadiisa ka soo bixi waayo waynu rushaynanaa war adeer mid baan idiin sheegayaa garaad somalilan la socdana ma rabno garaad buntland la socdana ma rabno garaad dawlad kale la socdana ma rabno annaga adeer waxaana deeqa calankaa dhammayska ay dhanka farasku kaga yaal war ma beentanba hal mid baan garaadada leeyahay war in adeer waxaan idin leeyahay waxa aad halkaa ku timaadeen laasacaanood maydaan soo xaroon jirin laasacaanood maydaan imaan jirin annaga dhiigayagii baad ku timaadeen dhimashahaannu dhimannay baad ku timaadeen wallaahi idinka yaalimayna xinjirtayada cunta